isku maqanay kala maqanay warya waxaad ku maqnayd mahankeene isku maqanay kala maqanay waxaad ku maqnayd mahankeene waxaan ku maqnay dadkan maqano warya wixii ka maqnay muraad kala ahayn waxaan ku maqnay dadkaan maqanayo wixii ka maqnay muraad kala ahayn isku maqnay maanta waa maalintii haweenka damaashaad iyo dabaaldeg iyo farxad ayaan ka bixin la'anahay wareedha isku maqnay haweenku ha dabaaldegaan ma xume wadada ma loo xiray horta wareedha isku maqnay maxaa jidka loogu xiri waayay haweenka waxaa ka mid ah marwada madaxweynaha ka mid ah war isku maqnay sidoo kale waxaa joogay madaxdii haweenkoo dhan waxaase kaaga sii daran maantay baraha bulshado dhan waa haysteen wareedha isku maqnay waxaan idin weydiiyey halka maalin oo haweenka sanadka ku leeyahay muxuu yahay soo habeen walba iyagu ma laha iyo maalin walba nin horta taasaanba hadda soo wadayo waaba yaabanaayo yaa maalintan horta keligeed haweenka u sameeyey meel ay ku qoran tahayse ma arag aniga in haween keligood maalin adduunka ay ku leeyihiin war isku maqnay haddii maalinta haweenka la sameeyey maalinta dhallinyarada la sameeyey maalinta ragga aawe way soo socotaaye mar dhow waa la samayn doonaaye james iswaana soo wadee iska suga war nin qaldanaa tahee james swan maalmaha ay koo kala calaamaysan u imaada ninkan james swan la yidhaahdo maxaa ka qusaya maalinta haweenka iyo xuquuqdooda wareedha isku maqnay ninkan odagee hadlay horta waa runtiis saaka markaan soo toosay james swan warqadihii uu soo qoray facebook twitter website inta meel wax lagu qoro dhan idaacad laga hadlo telefishin meel kastoo wax la geliyo maalintaas hambalyadiisa iyo maarata sheekadii haweenka uu ka dhahay iyo 30% dumarka iyo siyaasadooda iyo maarata xaqraada in laga joojiyo dumarka iyo wixii uu soo qoro dhan aan meel walba ku qornay war isku maqnay madaxdu maanta waa ka hadleen bartooda twitterka ayay ku soo qoreen gaar ahaan ra'iisul wasaaraha waxaan la yaabanahay idinkaan idin la yaabanahay oo dumarka xaqi ka maqnay halka maalin loo raadi lahay ku haysatiin war isku maqnay dadka ha ku maqnaanina haweenkana ha ku maqnaanina haweenka xuquuqdooda quraanka kariimka lagu sheegay wareedha isku maqnay war cusub aan idin hayaa nimankii ahlu sunna ahaa waxay yiraahdeen anagu siyaasadda kama bixin tanaasulkii la sheegayina baraankii buu ahaa war isku maqnay macallin maxamuudkii aan ogaa ee dhuuso mareeb ka tagay garowna ku sugan miyuu warkaas ka soo yeeray war isku maqnay maxaad u la yaabaysiin qoolay qoor qabasho biyo kuma cabto balse waxaan la yaabanahay shirka jaraa'id markii uu qabahay macallin maxamuud warbaahinta la joogtay oo ka soo duubtay sooma warin in qoray dhigta laga saaray in kale wadaadka ma la qasba war isku maqnay war ma yeesaane odayaasha mar hore ka baxeen siyaasadii waatay masaajidada aadeenay hadda ay soo laabteen siyaasad laga samree maan dhaafno warhada isku maqnay waxaan idin sheegayaa nimanka la yiraahdo ahlu sunna markii horeba Puntland baa laga maalgeli jiray dadka Soomaaliyeedna ma ogeyn laakiin aniga si rasmi ah u ogaa maanta laga bilaabana Puntland baa hadda koow laga soo aasaasaya ahlu sunna siyaasadooduna halkaas ay ku shaqayn doontaa wareedha isku maqnay war ninkan weyn wuxuu ku waramayaa maqla Soomaalidu dhan ma ogeen kaliya baa ogaa kula majiniya u warama war isku maqnay ahlu sunnada aad ka hadlaysaan xaruntoodii inji ee dhuuso mareeb dib u dayactira lagu bilaabay malaha kaasay ka xanaaqeenan u maleeha aniga waxaan ka cabsaha qoor midii ku haayeen inay dani ku bilaabaan war isku maqnay war ma yeesaane waxa wax walba iga daran nimanka war saxaafadeed markay soo saareen tiim barahoodii iyo sidii u sharaxeen waa sidii hore oo kale waxa iga sii daran murugta maanta heesa General Mas'uud oo shalay wakiishay war garawa dawlad guuriye miyaa tagtay wareedha isku maqnay waxba hadalka sii wadwadinina anigu waxaan maqli jiray siyaasaddu saaxiib joogta ma laakiin dan joogta bay leedahay
marka ahlu sunna waa sidaas oo kale wareedha isku maqanay anugu nimankaas hal talaan u hayaa mawlacooda garowa ha ka furtaan digrigooda meeshooda ha ka wadaan bunkooda iyo cambuuladoodana ha ku ekaadaan war isku maqanay war horlaha yimid Kenya wafdi balaaran ay soo dirtay wasiirkii amniga gudaha Kenya muqdisho soo gaaray wareedha isku maqanay waxaa idin weydiiyey wasiirkan iyo wafdigan maanta imaaday waxay soo doona Kenya ma kuleelka taabtay war isku maqanay waxay la yaabeen nin qorigiisa wato haddana Facebook update ka ah haram cadaa laga arkay haram cadaa waa shaa u maleynaa markaa soo la yaabeen nimaha warkiina waxaa ka soo dhadhamayo warkii maalmahan magaalada la waday oo ahay waxa la dhihi jiray cayaanka baraha bulshada oo magaalada la faafihay sheekadiisa meesha ka bilowdeen wareedha isku maqanay war aniga meesha adinku wax ka aragteen aniga xabadka ma arko waxaan idin weydiinaa Kenya markay wasiirka arrimaha gudaha noo soo dirayso gobol dalkeeda kamid ah maanahay war isku maqanay gobol kamid ah dalkeeda ma nihine waxaan u maleynayaa inuu wafdigan hordhac u yahay Uhuru Kenyatta war isku maqanay wafdiga wasiirka Kenya ka socda way hadleen hore waxa loo yiri isku maqan waa isku maqan tahay Kenya waa lagu maqan yahay Soomaaliya waa lagu maqan yahay Kenya iyo Soomaaliya waa isku maqan yihiin wasiirkan socdana waxa uu sheegay inuu soo diray madaxweynaha Kenya wareedha isku maqanay anu hal arrin baa idin hayaa horta haddii laba dawlad ay macaamilayaan siyaasad waxaan ku naqaanay wasiirka arrimaha dibadda ama labada wasaarad ee labada dal inay wada hadlaan ay macaamilaan balse arrintan waxaan u fahmay in ujeedadu ay tahay mandheero dhibki ka dhacay in uu kala hadlayo wasiirkan wasiirkiisa kale war isku maqanay haddii wasiirka arrimaha gudaha u yimid sabriya asi ma seexday wareedha isku maqanay waxaa idin weydiiyey wafdigan wasiirka arrimaha gudaha Kenya madaxweyne Farmaajo la kulmaa la yiri saw ula kulmo horta diblomaasiyad noocay ahayd sheekadaas waxa laga fahamtay sheekadan war ma ogidi diblomaasiyadda 8 Febraayo ma taqaanid miya isku maqanay sabriye waa wasiirka arrimaha gudaha waa uu la kulmi lahaa dhigiise daalku ka soo qaaday dhuusamareeb waa uu jiifaa haddana waxaa la sheegayaa qaru ahaan inuu ku maqlay in mar kale ay soo rogaal celiyeen ahlu sunna dhibkiisa ma yara marka war aniga waxaan kaaga shakisanahay ina adiga xataa qaru iiso